hambalyo diraya dhammaan shacabweynaha Jamhuuriyadda Somaliland hadduu ku nool yahay haddii ku nool yahay dhammaantood waxaan leeyahay ciideeda Allah inuu gaarsiiyo bushbushiga barwaaqo iyo nabad qabna iyadoo taraf Somaliland hesha oo ku guuleysatay himadigeeda iyo waxay doonayso waxaan leeyahay hambalyo ilaa ciideedana inuu gaarsiiyo nabadaan haysano mid ka sii wanaagsan intaas markaa hambalyada ka baxaya dhinaca marka la eegto Somaliland waxaan soconaa waqti aad iyo aad u wanaagsan waqtiga ay dowladda hadda ku jirtaa waxa weeyaan marxaladii hore ee Somaliland soo martay waxay ku beesgareysay marxalad nabadeed keliya laakiin marxaladda dowladda ka shaqeysa waxay nabadeyntii heerkeedii dimuqraadiyaddii baa dhammaystirantay taasi markaa waxaa soconaa heer horumarineed nabadeyn horumarin iyo wada noolaashu shacabka Somaliland u sinaado horumarka iyo nolosha intaba taasaa lagu jiraa waxaan rajaynayaa in dadka Somaliland horumarka maanta lagu jiro gaar ahaan wadooyinka infrastructure-ka ama wadooyinka iyo qaabka isku dhismaan waa horumarka waddanka kow ka tahay adduunyada kale markaad cagaha saartay airport ka degtay adduunyada waxa u horeeya dareentay halkii kaga duwan yihiin waa infrastructure waddaad arkaysaa qurux badan guryo qurux badan baad arkaysaa taas oo isku xidhan waxaan rabaa Somaliland markaa waxay tahay cagaha saartay waddadii horumarka maadaama ay maanta mashquul ku tahay sidii Somaliland oo dhan la isku xidhi lahaa waddooyinka hadday tahay Salaxle hadday tahay Bilagubadle hadday tahay Laxargaabo hadday tahay Boorame la dila oo kan Boorame la hagaajinayo waliba iyadana dhammaystiran tahay Boorame la dila iyo kala beernaa dib baa loo hagaajinayo hay'adda xarada ka qaliya kadib inta markaa Facebook dhammaanay waxaan aamsanahay inaanu dhaqaaqi doono ilaa xeeb ilaa yasiir insha Allah in la dhammaystiri doono oo qorshaha dowladda ay tahay inta cimriga gaaro fishankan ku jirnay aan lisayna waa taas waxaad ka warantaa in saacatul wasiir wada hadalladii u dambeeyay deegaanka xiriirada dadba jooga ka ahayd ka qayb qaadatay dadka beelaha deegaankaasi lagu nabadeynayay halkay imiga marayaan runtii meesha waxaan tagnay marxalad aad u adag baan ugu tagnay waxaan ugu tagnay dadka oo aan is salaamin dadka oo aan isdhexgelin dadka oo iskuulka kala dhigtay oo aan wada dhiganin dadka oo runtii aad iyo aad u kala fogaaday muddo badan kala maqnaa ilaa iyo dhowr istaadkii waxaan alxamdulillah ilaahay noo suurtageliyey dadaal badan kadib inaan labadii beelood gacmaha isku saaro wada hadal oo furo nin walba wuxuu ka cabanaya inuu sheego wax badan bay ka hadleen oo ay bees u ahayd dad la kala laayay ay kala dhintay ka dhaawacya annagu haddaan nahay qoladii dowladda ka socotay wasiirada ahayd waxaan xoog saaray wixii dhimashaha in xal u helo waxaa 12 dil baa la hor keenay laguna dooday laguna kala dacweeyay labada qaybood 6 dhinaca iyo 4 dhinaca alxamdulillah waxaan ku guuleysanay laba marka laga reebo annagu waan tuuray anagu waqti baanu ka bilownay waxaan nagu kama xatalin karno ilaa dhowr istaadkii maadaama dowladda hore jiri jirtay laakiin waxaanu ka bilaabaynaa waqtigii dowladdii Somaliland bilaabantay shirkii waxaa laga dhawaaqay Somaliland wixii ka dambeeyay baan anagu ka garnaqi karnaa wixii ka horeeyay idinkaan dhaafayna saasaan markaa iyagu ugu daynay waanu ku guulaysanay markaa goortoodii waanu qaadnay 12kiina waanu 8 kalena waanu kala xukunay xukunkiina waa loo balansan yahay muddo 15 cisho kadib ah in dib loogu noqdo waxaana probably laga yaabaa inay joogaan qoladii goortahay labadii qaybood way diyaar garoobayaan saan ogaanshahayga kastoo dadka duruufaad ay haystaan duruufo dhaqaale haystaan dadka qaarkood ganaaxa saaray labada qayboodba dilalka qaarkood baanu ganaax ku saaray oo waxaa laga yaabaa qolana $5,000 in lagu ganaaxay qolana $5,000 lagu ganaaxay iyadoo aanan magti ahayn taas lacagtaas ee ahayd foolxumadii dilka ka dhacay awgeed tiina dadka way ku mashquulsan yihiin si lacagta u ururin lahaayeen iyagoo duruufooda dhaqaale liito labada dhinacba waxaan filayaa in 15 cisho gudahood ama 15 cisho markay dhammaato dhammaan guurtii iyo labadii beelood ay wax ka dhexeeyeen ay mar labaad ku kulmi doonaan xariirad si ama qaado ballamihii loo kala qaado waxyaabihii lagu kala xukumay loo kala qaado taas aynu mashquul lagu yahay labadan ogaanshahaygana labada dhinacba already waa diyaar inay tagaan ka qayb qaataan